waxaan wanaagsan dadka na daawanaya meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkan waa Somali American TV oo si toos ah ka soo gudbinayno studio-heena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta go'aansaday inuu dib u celiyo dhalashadii Mareykanka ee uu haystay. haddaba waa maxay sababtu? maxaa si xilligan keenay in uu go'aankaasi qaato? yaase kula taliyay madaxweynuhu in uu baasaboorkii Mareykanka uu dib ugu celiyo Mareykanka. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in jinsiyadii labaad ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka qaatay dalka Mareykanka uu isagu dib isaga celiyay. waxaa sidoo kale warqad lagu xusay in hawshan ay in muddo socotay markaasi lagu sheegay in sharci yaqaano ay aad u lafagureen arintaasi. inkasta oo dastuurka Soomaaliya uu fasaxayo in qofku uu haysan karo laba jinsiyadood oo kala duwan ayaa haddana waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in uu madaxweyne Farmaajo uu isagu qaatay go'aankaasi shakhsiyadeed. madaxweyne Farmaajo ayaa 8 bishii February sanadkii 2017 waxaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. maxaa hadaba lagu macnayn karaa tallaabadan? afhayeenka madaxtooyada dowladda Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa isagoo sheegay in tallaabada uu madaxweynuhu qaatay ay ahayd go'aan shakhsiyadeed oo isaga u gaara. waa go'aan shakhsi ah oo uu madaxweynuhu qaatay. markaan ku leeyahay go'aan shakhsi ah waa in aanu u aragno in jinsiyadda uu celinayo si uu dadkiisa iyo dalkiisa ugu khidmadeeyo amaba ugu adeego, ayuu yidhi madaxweyne afhayeenka madaxtooyada Master Cabdinuur. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa in muddo ah ku noolaa wadanka Mareykanka, waxaana uu dalka ka noqday sanadkii 2010 ra'iisul wasaare. sharci yaqaanada iyo khubarada dhanka diblomaasiyadeed ayaa tallaabadani madaxweynaha ku macneeyay mid geesinimo leh. Abukaati Zakariya Yuusuf oo ah sharci yaqaan ayaa qaba in tallaabada madaxweynuhu ay tahay mid muujinaysa in uu dalkiisa iyo dadkiisaba daacad u yahay. balse Abukaati Zakariya ayaa sidoo kale qaba in laga yaabo in madaxweynaha culays uga yimid haysashada labada jinsiyadood. waxaa dhici karta in culaysyo ay uga yimaadeen in labada jinsiyadood uusan ku wada shaqayn karin. waxaas oo dhami waxay noqonayaan saadaalin, balse isaga ayaa og sababta dhabta ah ee uu uga tanaasulay. balse waa go'aan geesinimo leh, ayuu intaasi ku daray Abukaati Zakariya. haddaba wadadani ama jidkani ma noqonaysaa mid ku furanta dadka xilalka ka haya Soomaaliya amaba maamulada Soomaaliya ee haysta labada jinsiyadood? qaar badan oo kamid ah madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay haystaan dhalashooyin dalal kale oo u badan kuwa reer galbeedka. qaar kamid ah golaha wasiirada, xubnaha baarlamaanka iyo madax kale oo dowladda hadda jirta ka tirsan ayaa haysta dhalashada dalal kale oo ay hore ugu noolaayeen. su-aasha ay dad badan iminka isweydiinayaan ayaa ah, arrintani ma saameyn doontaa madaxda kale? Abukaati Zakariya ayaa sheegay in dastuurka iminka jira ee Soomaaliya uu dhigayo in qofku uu haysan karo laba jinsiyadood. arrimaha jinsiyadda labaad amaba baasaboorka Mareykanka ee uu haystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay sababtay in uu ka baaqdo shirkii madaxweynayaasha ee golaha qaramada midoobay ee New York lagu qabto sanad kasta, kuwaasi oo uu 3 jeer ka baaqday. waa maxay haddaba sababaha keenaya in madaxweynuhu haddii uu haysto baasaboor Mareykan in uu ka baaqdo inuu yimaado shir ka dhacaya wadanka Mareykanka? waa marka ugu horeysay dowladda Mareykanku waxa ay u aqoonsan tahay qofka haysta baasaboor Mareykan inuu yahay muwaadin dalkiisa yimid, waxaana uu waayayaa waajibaadkii ka saarnaa dowladda Mareykanka dhinaca ammaanka, mana helayo ilaalo gaar ah iyo in si taxaddar leh markaasi loo ilaaliyo, iyadoo markaasi loo aqoonsan yahay in uu dal kale madaxweynaheedii uu yahay.
jinsiyadda kale ee Soomaalinimada ee ah baasaboorka Soomaaliga haddii uu ku yimaado dalka Mareykanka ayaa iyaduna waxa ay meel ka dhac ku noqonaysaa qawaaniinta iyo shuruucda dalka Mareykanka in nin Mareykan uu markale ku yimaado isagoo madaxweyne ah oo sita baasaboorka dalka uu madaxweynaha ka yahay. arrimahaasi oo dhan ayaa noqday kuwa culays ku hayay 3 sano ama 2 sano aan ilaahay ugu dambeeyay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. inkastoo xukuumaddu iyo inta ka agdhow ay ku tilmaameen madaxweynuhu in ay ka tahay daacadnimo uu uga tanaasulayo inuu ummadiisa u shaqeeyo, haddana waxyaabo fara badan ayaa keeni karaya in shaki uu ka dhasho. su-aasha ugu muhiimsan ayaa waxay tahay muxuu madaxweynuhu u tanaasulay xilligan oo uu 2 sano ka hor markii uu madaxweynaha noqday uu baasaboorkaasi ama dhalashadaasi uga tanaasuli waayay. waa maxay sababta keentay in uu ka tanaasulo dhalashada dalka Mareykanka iyadoo haatan xilligii uu madaxtinimada sii haynayay ayba ka harsan tahay 2 sano iyo wax ka sii yar? haddii ay dhacdo in dowladdan federaalka ee haatan uu madaxda ka yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in muddo kordhin loo sameeyo 2 sanadooda amaba mar kale la dooranba waayo madaxweyne Farmaajo, sidee buu haddana mar kale ay u dhici kartaa in uu qoomameeyo amaba uu ka shalaayo in jinsiyadiisii Mareykannimo uu dib u celiyay isagoo aan hubin in uu xilli kororsi sameeyay amaba mar kale madaxweyne loo dooran? waa madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee si toos ah u sheega ummadiisana u soo hordhiga in uu ka tanaasulay jinsiyadii Mareykanka ee uu haystay, isagoo markaasi u ballan qaaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa ugu shaqayn doono jinsiyadda Soomaalinimada ee uu baasaboorkeeda haatan haysto. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isaguna haysto dhalasho Norway, taasi oo tilmaamaysa in xilal badan ay dad fara badan oo Soomaaliyeed ay ka hayaan iyagoo markaasi jinsiyada kala haysta. waxaas ay ku xiran tahay nin walba jinsiyadda uu haysto iyo waxa dastuurka dalkaasi uu ka qabo in qofkaasi 2 jinsiyadood uu sii haysto. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aad ugu farxay in haddii laga eego dhinaca daacadnimada ay tahay tallaabo aad u wanaagsan oo horumar leh in qof muwaadinihi uu u tanaasulo in ummadda Soomaaliyeed uu u shaqeeyo. dadka si naqdiya xukuumadda ayaa had iyo jeer iyagu dhinaca kale u arka oo markaasi u arka in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay isaga marka hore ay tahay go'aankiisii in uu go'aansaday inuu baasaboorkaasi dib u celiyo ama dhalashada waddanka Mareykanka uu dib u celiyo, hase yeeshee ay arrinkaasi shaki weyn ka qabaan oo ay aaminsan yihiin in wax kale ay ku lamaan yihiin. haatana daawadayaal, taariikh kooban oo aanu kaga hadli doono ilaahay naxariistii janno ha siiye duqii magaalada Muqdisho ahaana gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo u dhintay dhaawacii ka soo gaaray qaraxii xaruntii dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Yariisow waxa uu ku dhintay magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan 16 bishii August 1965. injineer Yariisow sanadku markuu ahaa 1981 ayuu dhamaystay waxbarashadiisii dugsiga sare, waxaana uu ka baxay dugsiga sare ee Banaadir. waxa uu ku biiray jaamacaddii ummadda kulliyadda injineeriya oo uu ka qalin jabiyay 1986. waxa uu bartay civil engineering, waxaana uu shaqo ka bilaabay markaasi wasaaraddii lagu magacaabi jiray howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliya. waxa uu ka soo shaqeeyay gobolka Bay, Bakool iyo weliba Banaadir. burburkii kadib ayaa haddaba injineer Yariisow waxa uu u wareegay waddanka UK, halkaasi oo ka sii watay waxbarashadiisii heerka 2 ee jaamacadda. waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda lagu magacaabo Westminster, halkaasi oo uu ka qaatay shahaadada masterka la yiraahdo, kuna qaatay maamulka iyo guriyeynta ee loo yaqaano afka qalaad housing management. in ka badan 10 sano ayuu u shaqeynayay dowladda hoose ee London, gaar ahaan degmada Alien la yiraahdo oo uu ka ahaa madaxii guriyeynta halkaasi.
waxa kale oo soo noqday madaxii qurba joogta Soomaalida ku dhaqan wadanka UK 10 sano ka hor ayuu dalka dib ugu soo laabtay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaana uu noqday madaxii xafiiska ra'iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde waxa uu xilal kala duwan oo ka soo qabtay dawladihii ku meel gaarka ahaa ee kala dambeeyay ee Soomaaliya injineer Yariisow waxa uu 3 jeer soo noqday wasiir waxaana uu noqday markii ugu horeysay wasiirka lacagta iyo 2 jeer oo uu noqday wasiirkii warfaafinta ee Soomaaliya markaasi oo mar kamida ay ahayd intii aan loo magacaabin gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho injineer Yariisow sidoo kale waxa uu ahaa ciyaaryahan waxaana uu u soo ciyaaray oo u soo saftay kooxihii Kenya iyo waliba madbacada ilaahay naxariis jannaha siiye injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxa uu ifka kaga tagay xaas iyo 7 caruur ah 2 gabdhood anaada 2 wiil iyo 5 gabdhood waxaanu dhamaantayo u tacsiideynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo caruurtii xaaskii uu ka tagay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow daawadayaal intaasi ayaan ku soo koobayaa taariikhdii koobneed ee aanu kaga hadlaynay ilaahay naxariis jannaha siiye gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir duqi magaalada Muqdisho oo dhintay dhaawacii qaraxii ka soo gaaray xaruntii dawladda hoose markii la qarxiyay waxaana uu ku dhintay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow magaalada Dooxa ee wadanka Qatar tan iyo kulankan dambe daawadayaal intaynu mar kale barnaamij kale ku kulmi doono waa Cali Xalaari oo dhamaantii ba idinkaga tagaya sida iyo nabad galiyo